السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هانتي نقصد بهذا مركز البرنامج كيني Medical Parasitology إن شاء الله تعالى. أنت أنا جودها أوجلين وحلقة دي لبعض أو Medical Parasitology مركز كحلينا. خريج حقوق بالانسانين إن صحة Medical and Diagnose and Pharmacy إن حاجة إن سو حيصة وحياة بوجو كتعلق إن شاء الله تعالى ما ممكن إنه كفر يستيهد إن شاء الله تعالى ما ممكن كفر يستي وفرنقي إن شاء الله تعالى مادة بوجو هنا كل بحد وانتهى صار هراء إذا كوش شيء قد إن شاء الله تعالى ما ممكن نقول عنه حيكون جارين إن شاء الله تعالى أرضنا إن بيجذب بوجو إن شاء الله تعالى بوجو مايو ميديكال Parasitology Volume 1 haduu ilaahay insha Allah taala wuxuu ka kooban yahay 19 chapter ayuu ka kooban yahay waa qaybta koowaad Medical Parasitology insha Allah taala qaybta labaad insha Allah taala qaybta markaan dhamayno ayaan soo gudbin doonaa insha Allah taala buugan haduu ilaahay insha Allah taala qof kasto Soomaaliyeed oo u fasaxan yahay uu daawacan karaa qofka markuu gato qof kale uu sii toori kariyaa wuuna daawacan karaa laakiin marnaba in magac laga bedelo ma yeelin insha Allah taala waxaan kaloo yeelin insha Allah taala in la bedelo ama dib u habeyn lagu sameeyo anagoon ogolaashaan ka bixin insha Allah taala wixii khaladaad oo buugaas ku jira insha Allah taala inta koorsada aan ku jirno ayaan ishi iyo waxyaabahaas dhan dulmarin doona insha Allah taala marka anaga u taagan inaan addition to aan soo gudbino even hadii khaladaad ay ka soo baxaan haduu ilaahay yiraahdo ama ay noqoto inaan wax ku darno ama ay noqoto inaan wax ka bedelno ama aan wax ka reebno haduu ilaahay yiraahdo buugan cid alaala cidii gadatay insha Allah taala waxaan u ballan qaadaynaa intii yareedo anaga aan ka saxna ama aan ku darno ama aan ka reebno haduu ilaahay yiraahdo kadibna inaan buugii as PDF ahaan ugu diro doono insha Allah taala ayaan u ballan qaadaynaa waan diiwaan gelinaynaa dinna haduu ilaahay yiraahdo waan u diraynaa insha Allah taala intaas ayaan u ballan qaadaynaa buugan haduu ilaahay yiraahdo insha Allah taala wuxuu ku bixi doonaa as PowerPoint ahaan laakiin dadku waxay u qaadan doonaan buug caadi oo taasoo macnaha PDF ahaan loogu tuuri doono word lagu diyaariyo insha Allah taala word inta badan lagama soo jeedin karo markay noqoto in video laga habeeyo laakiin insha Allah taala wax badan ayaan isku digi doonaa haduu ilaahay insha Allah taala inta kadib waqtiga anaga haysan inaan dhaqaaleysan ayaan rabnaa haduu ilaahay insha Allah taala Medical Parasitology ayaan jadwalkeeda ayaan u gelinaa intaan gelin ka hor waxaan rabnaa inaan ogaano xanuun maxaa sababa sidoo kale Medical Parasitology-ga xagee ugu jirta insha Allah taala qaybaha caafimaadka marka laga hadlayo hore anaga ka soo hadalnay inay ka faa'iideysan doonaan dad badan oo kamid bulshada qaybaha kala duwan gaar ahaan ay ka faa'iideysan doonaan qaybaha kala duwan caafimaadka insha Allah taala sidoo kale waxaa jirto waxyaabaha xanuunka sababa markaan ka hadlayno Microbiology wax loo yaqaan Microbiology wax loo yaqaano waxyaabaha xanuunka sababa waxa loo yaqaan Microbiology number 1 waaye number 2 waxa kale oo sababi kara xanuunka marka laga hadlayo waxyaabaha kaaga imaan kara genetics waxyaabo kaaga imaan karo genetics ayaa jira insha Allah taala number 4 ama number 3 markaan ka hadlayno hal ilaa ka soo qaadana hadafka aan socdaan rabaa inaan gaaro haduu ilaahay yiraahdo waxyaabo loo yaqaano conditional waxyaabo loo yaqaano conditional okay xanuun waxyaabaha sababi kara markaan ka hadlayno saddexdan shay ayaan for example ahaan ku soo qaatay saddexda shay kaliya ma ahan waxyaabaha xanuun sabab aad iyo aad u badan yihiin microbiology ama biological factor waa la dhahaa biological factor markaan ka hadlayno waxyaabo kaaga imaan kara noolaha ay kamid tahay marka microbiology markaan ka hadlayno haduu ilaahay yiraahdo waxay kamid yihiin waxyaabaha bini aadamka iyo xayawaanada iyo dhirtaba xanuun ku sababay kamid yihiin genetics markaan ka hadlayno waxyaabaha hiddaha ka imaada ama dhaxaltooyada parents ama waalidiinta ka imaada waxay tahay in xanuuna ay sabab xanuuna qaar waxaa jiro waalidka labada waalid mid kamid oo gudbin doona sida diabetic nooc kamid oo kale ama sokorta nooc kamid oo kale maxay tahay waalidka ka imaanay ama aabaha ka imaanay ama hooyada dhankeeda ka imaanay aabaha iyo hooyada inaysan qabin laga yaaba awoowe iyo ayaga loo fiirinaa marka insha Allah taala dhanka aabaha ama dhanka hooyada insha Allah taala sidoo kale waxyaabo conditional jiro conditional maxay tahay qofka xaalad jawi degan ayuu ku jiray jawigii deganaa soo ugu jiray waxa ku imaanayso xaalad degdeg xaaladaas degdeg oo kaga imaan karto environmental kaga imaanay deegaanka kaga imaanay ama family kaga imaanay ama social ahaan ay ugu imaanay xaaladaas degdeg waxa kamid hadaan aan one example aan ku siiyo waxa lagu dhahay hebelka aad jecleed oo hadda ka tagay waa meeda lagu dhahay uu dhintay maxaa dhacay amar baa ku dhacay idan qofkaasi oo hadda aad wada quraacateen ama wada qadayseen ama wada cashayseen oo wax badan aan ka maqnayn oo hadda ma nuqsanayo waa meed dil ugu dhaho qofka xaaladiisa way isbedelaysaa xaalad wuxuu galayaa aan caadi ahayn run ahaantii
dadka qaarna weliba kooma u galeen short ay kasii qaadaan kooma ayuu sii galeen marka insha allahu tacaala conditional waa intaasi laakiin hadafkani aan u socda waxay tahay microbiology hadafkan u socda waxay tahay microbiology parasite meelaha aan ugu jirno aan rabna inaan wax ka ogaano insha allahu tacaala microbiology markaan ka hadlayno waa maadada oo macnaha microorganismka ama noolaha yaryar lagu baranayo maadada lagu baranayo noolaha yaryar oo lagu baranayo waa taasoo medical important u leh bini aadamka insha allahu tacaala microbiology markaan ka hadlayno qofka markuu soo bartana waxaa u naqaanaa qofka markii microbiology uu soo bartana waxaa u naqaanaa microbiologist ayaan u naqaanaa qofka markuu soo barto oo kusoo taqasuso maadooyinkan oo macnaha microbiology waan arki doonaa ilaa 5 maado hadduu ilaa yiraahdo waxaa u naqaanaa microbiologist ayaan u naqaanaa insha Allah taala koo waxaa ka ah waxyaabahan macnaha microbiology laga hadlayo lambar A markaan ka hadlayno waxay tahay bacteria lambar A maxay tahay bacteria lambar B maxay tahay wax loo yaqaano algae algae intaan gelin waxaan rabaa algae iyo virus inaan israaciyo hadduu ilaa yiraahdo fungi number B maxay tahay fungi okay number C waxay tahay parasites waa halka aan rabno aan u socono number C waxay tahay parasites okay D waxay tahay wax loo yaqaano viruses D wax loo yaqaano viruses E waxay tahay waxyaabaha xanuunka ama microbiology kamid ah wax loo yaqaano algae okay again aan ku celiyo microbiology markaan ka hadlayno waxay tahay ilaa iyo 5 qaybood la isku daray 5 qaybood la isku daray qofka ku taqasusay waxaa u naqaanaa microbiologist ayaan u naqaanaa waa qof ku taqasusay microorganismska okay 5 qaybood markaan ka hadlayno koo waxaa kamid ah bacteria kamid ah xanuun bay sababtaa labo waxaa kamid ah fungi baa kamid ah xanuun buu sababaa saddex waxaa kamid ah parasiteska kamid ah waa hadafka anaga u socno maxay tahay xanuun buu sababaa viruseska markaan ka hadlayno asagna sidoo kale medical important uu leeyahay asna sidoo kale xanuun buu sababaa algae markaan ka hadlayno non pathogenic waa xanuun ma sababo insha Allah taala sidoo kale bacteria markaan ka hadlayno aan ku soo celiyo microorganismka ama noolaha yaryar 5 qaybood waa 5 qaybood markaan ka hadlayno saddexdan kore laba ayaa loo qaybiyaa macnaha marka laga hadlayo medical important maxay tahay laba loo kala qaadaa labadan kale ma qaybsano insha Allah taala qaabkaasna waa ku sheegi doonaa bacteria markaan ka hadlayno laba qaybood ay noqonayaan labada qaybood ay noqonayso waxay tahay in qayb loo yaqaano pathogenic bacteria ama bacteriada xanuunka sababta iyo non pathogenic bacteriada aan xanuunka sababin for example ahaan markaan kaaga soo qaato bacteriada qaar waxay tahay markastoo jirkaaga soo gasho ama jirka bini aadamka ama balantiska ha noqoto ama animaliska ha noqdaan maxay tahay xanuun bay ku sababaysaa kuwa qaarna jirka bini aadamka ama balantiska ama xayawaanada maxay tahay caadi ahaan waa iskaga nool yihiin normal flora loo yaqaan normal flora bacteria taasoo ay ku raadinayso laakiin janis ay ku raadinayso janis dahashana xanuun bay sabaysaa meesha haday ka tagtaan maxay tahay meesha positionka ayada loogu talagalay haday ka tagtaan maxay tahay xanuun bay sabaysaa haday positionka ay tagto fungi ama fungi labada loogu dhawaaqa insha Allah taala qolada aan macnaha indiyaanka aan wax ka soo bartay waxa ugu dhawaaqaan fungi insha Allah taala marka fungi marka laga hadlayo asigana wuxuu leeyahay laba qaybood qaybna waxay sababtaa xanuun bay sababtaa qaybna xanuun ma sababto non pathogenic fungi waxay tahay fungi aan xanuun ka sababin pathogenic fungi waxay tahay fungi xanuun ka sabab parasites markaan ka hadlayno parasitology ama parasiteska ama deriska noolaha ama gooryaanada iyo waxyaabaha la halmaada maxay tahay qaarna ayagana xanuun bay sababaan qaarna xanuun ma sababaan non pathogenic parasite ayaa jiro iyo pathogenic parasite insha Allah taala maadada inta ku guda jirno ayaan ku baranaynaa insha Allah taala parasite oo xanuun sababa iyo midaan xanuun sababa inta bay yihiin insha Allah taala viruses ayaa jiro insha Allah taala viruseska iyo algae labadan agsi isku yihiin viruseska iyo algae labada agsi isku yihiin viruses dhammaantiis maxay tahay xanuun buu sababa laba ma kala qaaday waa maya virus markaan ka hadlayno viruskan xanuun ma sababo ma maqlaysid viruskan waxa waa iska dhaxalxaad oo maqlimayso virus dhammaantiis markaad aragto xanuun buu sababa ama bini aadamka ku sababa ama dhirta ku sababa ama xayawaanada ku sababa insha Allah taala sida ay la socoto algae markaan ka hadlayno asigana wax xanuun ma sababo algae asna ma qaybsamo kan xanuun sababa kan xanuun ma sababo ma laho laakiin algae
waxay tahay total ahaan marka laga hadlayo wax xanuun ah ma sabo insha Allah taala labadan asiya isku yihiin inta kala loo kala qaada mid xanuun sabo iyo mid aan xanuun sabo insha Allah taala sida ina ula socon okay inaan soo kafar gareeyaan isku day insha Allah taala bulsh waxaan u saaray in xoogaa macnaha waqtigan qaalaysan insha Allah taala bacteria waxaan ku soo sheegnay in pathogenic in xanuun sababta iyo xanuun aan sababin fungi waxaan ku sheegnay mid xanuun sabab iyo mid aan xanuun sabab insha Allah taala parasites maxay tahay kuwana xanuun bay sababaan kuwana xanuun ma sababaan viruska muxuu yahay dhammaantiisa maxay tahay xanuun buu sababaa algae maxay tahay asna dhammaantiisa wax xanuun ma sababo insha Allah taala bacteria maadada aan ku baran waxaan naqaanaa bacteriology maadada aan ku baran waxaan naqaanaa bacteriology qofka soo barta waxaan naqaanaa bacteriologist fungi maadada aan ku baran waxaan naqaanaa mycology maadada lagu barto waxaan naqaanaa maadada qofka markuu soo barto waxaan naqaanaa mycologist insha Allah taala parasiteska maadada lagu barto waxaan naqaanaa parasitology qofka soo barto waxaan naqaanaa parasitologist insha Allah taala viruseska maadada lagu barto waxaan naqaanaa virology sidoo kale qofka markuu soo barto waxaan naqaanaa virologist insha Allah taala algae maadada lagu barto waxaan naqaanaa phycology qofka markuu soo barto waxaan naqaanaa phycologist insha Allah taala inaan waqtiga la qaalaysan rabno haduu Ilaahay yiraahdo buugun waa saan hore idin kugu sheegay waa diyaar $2 haduu Ilaahay yiraahdo lambarka hortaada ka muuqdo insha Allah taala ayaa macna whatsapp aad kula soo xiriiraysaa whatsapp ahaan ayaan kugu soo tuuri doonaa haduu Ilaahay insha Allah taala dhamaan waxaan idin ka rajeynayaa insha Allah taala inaad noo soo wada duceysaan aan isku wada duceyno Ilaahay dambideena dambi waalidkiina Ilaahay ha dhaafo haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah taala qof kastana inuu Ilaahay cilmigan ku anfacayaan rajeyna dar Ilaahay inuu Ilaahay ka dhigaan rajeyna insha Allah taala dhamaantiin inaan ku wada intifaacan haduu Ilaahay insha Allah taala Ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu Ilaahay noo fududeeyo insha Allah taala aad iyo aad baan idin salaamaya waa walaalkiina Cabduqaadir insha Allah taala oo idin leh meel badin ku joogtaan nabadgelyo ku jooga insha Allah taala assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh